بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا والنساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الله، وهي عن فيسبوك عن حدكو أركي ونمن ولا عليه oo ila degan degmadayda liibanta. aan wax yar talo iyo tusaale u sheegayaa. waxa weeye degmadaas waxa iska leh horta ani ma sheegay aan u dhashay beesha Jiida Cali. Ani ma sheegay dadweynihii meesha degan baa idin sheegayaa. dadweynihii degmada degan baa idin sheegayaa. marka ani baba sheegayba waxaa sheegay dadkii meesha degan maart oo magaalo degan oo deegaanka ah, qofkii iska leh ayaa sheegi doonaa. anigaba sheegayba yaa ugu horeeya meesha inay soo degeen. waxaa ugu horeeya heer dabahay oo habar gidir ceer ah. yaa dejiyey? qabiilkii iska leh baa dejiyey meesha. ayagaa yaqaan, laakiin ani ma sheegay hadda. dadkii anaa iska leh oo lahow anaa iska leh ninkii dhahayow dhigaa fur. ana ma sheegay dadkii oo meesha la dejiyey ayaa sheegay dadkii iskale qabiilka iska leh. yaa kamid dadkaas waa heer dabahay oo habar gidir ceer ah. yaa labeeyey qabiilkii la yidhahdo begedi oo degan buulasiidow may waa gafay. yaa labeeyey hawaadle oo degan hodan xaafadda. yaa kala labo begedi saddex sooma. intaas baa sheegaysaa qofkii iska leh degmada qoryooley, qabiilkii iska leh degmada qoryooley. dadna waa u bartimun hayaa. yaa marka qoryooley dadka iska leh waa la ogyahay. waxaa la yiray qabiilkii hadda meesha deganow, waxaa la yidhi xilliga taliyaan gumeysiga aa la yidhi waa loo yeeray, abkoogiisaa loo yeeray garre. deegaan baa la calaameyn hayaa. xaggee lagu calaameynaya la yidhi meel sheego. waxau yidhi ani alaama soo wiila yidhi deegaan ani ma rabo yidhi meeshii hasheeda kiila ay ka dhirigto baan leeyahay yidhi aniga ma rabo deegaan ka sooco. meeshay ay ku dhaaftay deegaan markuu abkooga uu saas yidhaahday. waxba ad meesha uu ku yaallo ma jiraan. xoogna wax laga ma lahado. hadday mataqaanaa xoog wax lagu lahaan lahaa baa ibakool baa caydiid lahaan lahaa iyo wiilkiisu saa caydiid. xoog waxba laguma lahado walaalayaal. waxba isku dayin xoog dad badan xoog magaalo ku lahaan lahaa magaalo.
alaa kulli haal degmada qoryooley xilliga talyaan markaa hornimadaan qaadanay aadan cabdulla ismaan aadan cadde markuu qaatay aan ku baxnay gumeysiga madaxweynihii hore Siyaad Barre allah u naxariistay uu dhintay degmada Kuntuwaarey iyo degmada Sablaale wuxuu dejiyay anagoo degan oo beesha jiida cali aan nahay wuxuu keenay qahooti oo kusoo daabulay diyaarad oo ka keenay wadamihii kala degmo ka dhigay Sablaale degmo ka dhigay Kuntuwaarey degmo ka dhigay xera koowaad iyo xera labaad hadun uu dejiyay qoryooley tan ugu horeysay waa degmooyinka beesha jiida cali tan ugu horeysay weeye qoryooley waa Italy jiida laha Italy jiido intaas qabiil baa degan haday hore aan u sheegay dadna ana askari oo leey aan la yaabanahayba waxa ay weydii marka boondada oo mataqaana ay ku taala farxaana ay ka baxayso farxaano goortii la dhisay yaa sheegi kara waxa laga dhisay yaa sheegi kara hala soo sheegay waxa laga dhisay mana sheegay in hadana qofkii sheegay baan rabaa qofkii sheegay ayaan rabaa waxa laga dhisay boondadaas gaalkii dhisayna aan rabaa hadana in la soo sheego magaciisi iyo qabiilkii oo ahaa gaalka uu ka ahaa qabiilka haddana waxa laga dhisay aan rabaa saliid ma laga dhisay ama biyo laga dhisay waxa laga dhisay aan rabaa oo lagu cajimay sameyntada ninkii sheegay qoryooley asaas kale ninkii uu soo sheego qoryooley ayagaas kale darbana wax la ma jirtaa darbana ma jirto darbana waxa abaabulay ma garanaysaan ninkii la jiray tarashow muxuu ahaa xilligii hore Siyaad Barre uu joogay udub iyo afaaf ku mid ahaa udub iyo afaaf ayuu ku mid ahaa markii hoolaha ay soo oo noqdaan baadi ka yimaadaan ay dhoobay ay soo galaan wabiga meesha Shabeelle hoose ay yimaadaan ninkii doonta uu noo sameyn jiray waxa doonta oo noo qori jiray geedka oo mukuyga ahaa mukuy aliyada dhoobay ka baxa tarashow mukuyga uu sameyn jiray doon buu noo sameyn jiray qaso iyo adeeg uu dhisi jiray oo weelyaha ay la gelsho oo yar oo looda ka gudub guryaha oo dhisi jiray waa wuxuu ahaa nin oo udub iyo afaaf ku mid yahay oo beesha jiida cali ah udub iyo afaaf oo kala baxaan beesha jiida oo kala baxda udub iyo afaaf waa afaaf waxa weeye dadkii jareerta ah weeye dadka jareerta ah udubna dadkii oo jilacada weeye oo jiidida ah oo jilac marka tarashow xilligii marka madaxweynihii hore allah u naxariisto Siyaad Barre markuu burburay soo baxay habar gidir baad suldaan baad tahay adana hawiyaa tahay liirno suldaan aad ka noqonaysaa Shabeelle suldaan deegaanka noqonaysaa liir xilligii uu dhihi jiray ahayd oo tarashow sama soo socoto sanka leertiis ka leexda xilligii uu dhihi jiray ahaa waxba u geyn weyday oo noqon waay waxba noqon waay annaga haddaanu nahay beesha jiida cali waxaan nahay dhul iyo xaqan yaa dhamaada dhul baan nahay annaga ciidii baan nahay samigii uu sheegayay wuu burburay tarashow haddana wuxuu abaabulay waxaan nahay inti jareer bax oo tinba qalloocan waxaan nahay qabiil baan nahay qabiil hal qabiil baan nahay inta jareer bax in nala kala qeybay ana ma yeelino marna yeelimayno yiri qabiilkayna adin sheego yiri darbana duubana digil Allah yirno darbana duubana digil tarashow abaabulay qabiilka idinka la ordaysan abukor ad darbana matid udub afaaf kumid matid udub afaaf matid abukor adig waxa tahay nin rahween ah abukorow adin rahween baa tahay oo heladi ah ha kugu jir digil ahadeed
warheedha digilha isku dirin abukar ana waa ku aqaana yaa heer bandar baan ahaan jirtay waxaa tahay nin heladi ah warheedha meesha wax kuma yaalo jiidan wax kama haysato meesha heladaada raadso buur helada tag xaquuqaaga meesha ku maqan ka raadsa xaquuq aad meesha aad ka leedahay maan aniga waxaan kala nahay digil imrafle ada nin marfla tahay abukar digilkan afaafka ha qaldan oo jiidu dhasheen ha qaldan haddii inaad boodday waxaa leedahay aniga garre walaal baan nahay dadkii walaal aan nahay garre aniga walaal nahay leedahay xageed ku walaalowdeen garre dadka aad hambaarsanaysid oo abaanduli u noqotay awadid waa dadkaygii anaa ila dhashaan waa udub iyo afaaf jiidda ay ka baxeen waa udub iyo afaaf war hooy dadka qaldan abukar helladii raadso helladii aad tahay raadso waxa weeye qoryoolayna dadki iskale dadkiiba oo meesha degan oo magaalad waa magaalo weyn magaalada dadkii degan qabiilada degan ayaa sheegaya dadki iskale ani waan leeyahay ma dhahay saaxib alaakiin abukar tartiib u joogaan kulli abukar joog udub iyo afaafad qaldoosa joog assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu abukuran wahayaa warka aniga meeshaas wax aad ku leedahay maleh meeshaas wax aad ku leedahay maleh ilaah abuurtay la boodaa meel kasta ku dhacdaa liibaantii qoryooley ma lahaanaysid haddaa laga soo sheegto buundada waxa gaalkii dhisay iyo waxaa laga dhisay maa biyo ahaa lagu cajimay shamindada ama subuq buu ahaa ama saliid macsarey ahayd waxaa lagu cajimay haddaad soo sheegtid buundada farxaane qoryooley adaa iskaleesaha abukar adoo hillida ah marka walaalow qalad ma fiicno joog anaa meel masu gaarin waxna kaama haysta aniga haddaanu nahay beesha jiidaale waxna kaama haysto aniga waxna iguma lihid jareerta oo jiidada ah aad qasayso ha qasin saaxib dadkaaga waa kuwan buur heladeed joogaan u tag waryaa ana waxba nagama qusay heladii helada waa deganta qoryooley waa degan yihiin meel la yirahdo tuulada gorgaal meel la degan yihiin tuulada gorgaal meel la yirahdo ma taqaanaa ay degan yihiin kuwaas ma yiraahdaan aniga askale qoryooley helada jilacday waay war adoo jareere saas kor isqaaday kor aniga intaan taagnay marka wareer abukar waas naqaanay tartiib u joogniyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa idin salaamaya walaalahayga qaaliga ah